waayadii dambe waxaa soo kordhay hablaha Soomaaliyeed ee labiska ka dhiganaya dharkii ragga lagu yaqiin inay qaataan baraha internetka ee bulshada inta badan isticmaasha gaar ahaan aaladaha Facebook iyo Instagram ayaa waxaa lagu arkayaa gabdho Soomaaliyeed oo xiran qamiisyo cimaamado kabaha ragga iyo noocyada kale ee dharka ragga xirtaan iyagoo soo dhigaya sawirro ay ku galeen baraha bulshada culimada Soomaaliyeed ayaana sheegin arrintan ay tahay dambi weyn iyo dhaqan xun oo bulshada ku soo kordhay waxaad arkaysaa marka aad tagto meelaha loo dalxiis taga magaalada Muqdisho ee meelo kamid ah gobolada dalka dumar koox u socdo oo ku labisan dharka ragga sawirna ku galaya marka aad milicsato wajiyadooda xilliga ay sawirka ay galayaan dumarkan waxaad ka dareemaysaa inay aad ugu faraxsan yihiin xirashada dharka ragga iyagoo aad mooday inay hilmaamsan yihiin in rasuulkeena nabadgelyo naxariis korkiisa Allah yeelay oo nacladay ragga dumarka isku ekeysiiyay dumarka ragga isku ekeysiiya Sheekh Axmed Ciid oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa si kulul uga hadlay dhacdadan isagoo sheegay in hablihii Soomaaliyeed ay ku dhaceen wixii Ilaahay nacaladiisa ay ku mudanayeen loona baahan yahay in laga hortago walaalayaal maanta ubadkeena waxay marayaan meel adag meel halisay marayaan oo bulshada iyo mujtamaca khatar ku ah oo ammaanka iyo nabadgelyada khatar ku ah oo diinta iyo dhaqan wanaagaynu ku dhaqanay khatar ku ah waraynu fadhiga ka kacno oo nin walowba intaad dhashay iyo intaad xilkooda hayso bal isweydii halkay maraan iyay la socdaan waqtiga halkay ku qaataan xaalkaagu ma dhargi oo jahannamo u naaxiba iyadu hilibkiisa ha shiishee waxaad u naaxinayseed u karinaysaa manaarta jahannama miyaanad u baqayn nabigu sallallahu alayhi wa sallam waxa uu kama fi al-Bukhari min hadith ibn Abbas لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال إلهي وحو نعدلون حريستيسا كدركيي رقا دمركا يسكو اكيسية إيا دمركا رقا يسكو اكيسية ما أنت دمركا لبسكي رقا قادنا يا لعنة إلهي بي حنبارتين أو دبركا أي كوقاتين وحس عقوبة إيا عنام بدن مدن كوار دالي إن وروهين ولد كوغي ميل أي مريان dhinaca kale Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cali ayaa sheegay in dumarka ay xirtaan dharka ragga ay tahay akhlaaq xumo loona baahan yahay in waalidka ilmihiisa la socdo geesta kale Sheekh Cabdiraxmaan ayaa tilmaamay in culimada looga baahan yahay dadka ay ka wacdiyaan dhacdadan dalka iyo dadka ku soo korortay inay intaadu cumaamad casiya khamiis cad social media ku dhex wareegaysataa waa fadiixa waa akhlaaq xumo halkii u dambeysay waa mas'uuliyad darro intaani nafteeda ceeb ku noqon bay ehelkeeda ceeb ku tahay culimadana mas'uuliyad baa ka saaran waa inay dadka xaq u sheegaan xumaha ka digaan bulshadooda waxa ku dhex faafaya waa inay si dhow iyo si dheer la socdaan waa inay la noolaadaan bulshadooda oo aanay ka noolaan culimadu waaqica ay ku dhex nool yihiin waa inay ogaadaan oo ay la socdaan shariicadana ummaddu markay taraarto ay ku soo dabaalaan maxaa yeelay ilaahay baa ballan ka qaaday culimada la tubayyinunahu linnaasi wala taktumuuna dadka xaqa ina u cadaysaan oo idan ka qarin baa alla yiri culimada ballan ma kaga qaaday jalla wa ala ballankii ilaahay ka soo baxaan culimadu waa akhlaaq xun oo inagu soo korodhay waxa wata iclaankan iyo miidiyahan xarkaha goostay waxa wata dhaqanadan xun ee sida dhibta yar loo gaarayo arrinka waxa wata fawaaxista iyo xumaanta indhaha laga qarsaday ee aan la isku la yaabahayn in gabadhu iyadoo la garanayo wajigeedii iyo waxa weeyaan maxaan ku dhahdaa jasadkeediba caynteeda la garanayo inay public timaado waxa ku kalifay wax kale maaha waa macalinka xun ee guryaha u jooga ama Facebook dheh ama Twitter dheh ama WhatsApp dheh ama waxa doonta ku sheeg waa miidiyaha xarkaha goostay ee ruuxu wuxuu doono uu ku qoraayo wanaad ilmahaaga inantaada iyo inankaaga waxay qorayaan iyo waxay ku qowlayaan iyo waxay qabanayaan inta weerad la socotaa waalidow hooyo iyo aabba labadaba mas'uuliyad baa ka saaran dadka u dhaqdhaqaaqay ilaalinta dhaqanka wanaagsan ee Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii u dambeeyay aad uga digayay in uu nabad guur ku socdo dhaqankeena tan ayaana qayb ka ah dhaqamada cusub ee dhawaanahan soo ifbaxay